nin gaal ah oo cadaan ah waa yaa bari yimid waa dhalinyaro waa nin school student ah oo project schoolka sameynaya marka diimaha la ka soo sameeyay marka questioner buu qaba diimaha ku saabsan marka imaamku ballan saddex xafiisku igu yimid su'aal uu weydiiyay islaamka ku saabsan waxaan ku yiri adiga diintada haysataa kasoo diin ama haysto maxaa dhacay waxa ka baqaya hadaan diin qaato inay diimaha kale ila culoobaan marka I want to be friendly to every religion everyone Islam hadaan noqdo Christian ka inaan Christian noqdo Islaamka mar rabo we game ka inaan dhex galo so waxaan rabaa between inaan noqdo marka saan alla ma aaminsantahay because yes I believe him so how you know him hada diin raacsaneen yeah I know the guy up there kulaha waan qana taqana I talk to him how you talk to him because you know other day waxa igu dhacay xanuun baa igu dhacay heart attack baa igu dhacay wadnihi baa wuxuu istaagay hal mar emergency baa la geeyay dhaqaatiirtu dhama isugu day couldn't help wa hadalku wallahi wuxuu yiri anoo dhiman raba dhaqaatiirta dhana waxba ay qaban waayeen inta xanuunka iga batay baan qeylii waan la hadlay bi waxa hey listen you know me and I know you you kill me now or you leave me kullahi left me we see that subhanallah haris Allah fiir ni ama idil ama idaa waasna qana labadeena fiir we left me kullaha waa fiicnaa soo fariistay nimanka xataa dhaqaata waa yaabeen bi marka kullaha markay xogaa ugu adkaata I talk to him and he helped me waa gaal qofka hadlay how do you feel adiga muslim hada tahay fiir madan inta marka qaarkood wallahi ma jiro adduunka wax aad maskaxdaada ku soo dhaca oo aad alla ka naxariis badan oo dareemi kartid ma jiro hooyada iyo aabaha ku dhalay adduunka yaad ugu jeceshahay pick up anyone yaa adduunka ugu jeceshahay adduunka dadka jooga human bini aadamka yaa ugu jeceshahay hooyada wiilasha dhan waa saas hooyaday yaa adduunka ugu jeceshahay Sheekh Axmed hooyada ma sha Allah fiir hooyada qof kasta wuxuu ku leeyahay hooyada ma u malaynaysaa hooyada oo awood leh adoo rafaadsan oo dhimanaya oo ay ka jaban tahay oo wax dib badan ku haysta inay ka tagayso ma malaynaysaa ida awoodda ma malaynaysaa wallahi Allah hooyada kaaga naxariis badan isagana ka jecel isagana ka awood badan hatta dareenka qalbigaaga ku jiro waxa dareemaysaa kaliya marka tira ya rabbi خلاص انت سواي لكن وين اسا ugu kalsoonaatid marada ya rab sayna ugu kalsoonaatid nishaqa wuxuu ka sheekeeyay waqsooyin aan la yaabo mar walba aan ku soo celceliyo wuxuu yiri waan xajinay wiil yar waxana la xajiyay oo kiyaalo waaweyn wata oo indhaha laga hayo oo aad xumaar ku yid marka wuxuu yiri waa wiil teenage wuxuu yiri diin jecel oo wuxuu aad markaan biyaha sansan ka nimid biyaha intuu cabay wajiga ku dhaqday oo kiyaali intuu xiisa isku jajabiyay butraashka ku daray kasabi waad kiyaha saga traashisa suyuru yiri shakhs oo nabigu ma dhihin ma uzamsan lima shuriba la biyaha sansan waa wixii loo cabo anu biyaha indhaha saaru cabay wayna fiicnaanayaan fi su'aal uu kalsoon sheekh wuxuu wala yaab wiilkii uu kan muwaanay wuxuu markaa xajki dhameyn usbuuc kadib ma inuu yiri kaalay waxaan rabaa indhaha inaan fiiriyo istal baan geeyay indhihan firibi wallahi wuxuu waa 20 wasi ilahay ku abuuray so fresh inahiin fi kalsoonida wiilka qaba fiiri kalsoonida qaba soo ilahay saas ma dhihin marka adiga niyadii ku been sheegin ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda